beegan tahay 23 bisha Maarso qodobada idaacadeena aad ku maqli doontaanna waxaa kamid ah caalamka oo wali u maaral ah fayraska corona saynisyahan Soomaali ah oo ka badbaaday cudurka talooyinna u haya Soomaalida cudurkan waa cudur khatar cudur ugub ah oo la aqoon dad dhalinyaro oo fiyow ayaa u dhimanaya dadka positive-ka isbitaalada yaala oo aan neefsan karin qofka hadduu arko asagaaba tacajab arki doona xaafadda Islii oo uu saameeyay amarka dawladda Kenya ay kula dagaalamayso cudurka mintidiin islaami ah oo ku dagaalama Mozambique oo qabsaday magaalo muhiim ah waxaan sidoo kale waraysi idinkaga haynaa fanaan la dhashay Maxamed Suleymaan Tuweeci codka halaasiga lahaa dabcan ciyaarihi qodobadaas iyo kuwa kale oo caalamkii Soomaaliduba ku saabsan ayaad barnaamijkan oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan ku maqli doontaan anigoo Bushra Nuur Maxamed ah ayaa idin la socodsiin doona balse marka hore warkii caalamka iyo Samiir Cabdullaahi Jaamac mahadsanid Bushra Ra'iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa baarlamaanka u sheegay in ciyaaraha Olombikada ee Tokyo dib loo dhigi doono sabab la xiriirta cudurka safmarka ah ee coronavirus waa markii ugu horeysay ee madaxweynuhu amar noocan oo kale ah shaaciyo balse waxaa ka soo horjeestay amarkaasi madaxa ciyaaraha Olombikada oo sheegay in ra'iisul wasaaraha uu ku shaqo lahayn in ciyaarahaasi dib loo dhigi doono iyo in kale Kuuriyada Koonfureed ayaa shaacisay tiradii ugu hooseysay ee kiisaska cusub ee viruska ah tan iyo markii viruska uu gaaray dalkaasi 4 toddobaad ka hor taas oo sare u qaadaysa rajada qaaradda Aasiya oo uu si weyn viruska ugu baahay marka laga soo tago Shiinaha 64 kiis oo hor leh ayaa la shaaciyay in uu soo ritay viruska 24 saacadood ee la soo dhaafay dalka Mareykanka tirada guud ee kiisaska cusub ee viruska ayaa la xaqiijiyay in ay haatan gaarayaan ilaa iyo 1,000 kiis guud ahaan dalkaasi halka 390 qof ay u geeriyoodeen viruska COVID-19 Dr. Jackson B waxa uu ka howlgalaa xarunta daryeelka degdega ah oo ku taala waqooyiga California waxaana uu sheegayaa in kiisaska cusub ee Mareykanka ka jira ay ka badan karaan 1 milyan Everyone has to take this pandemic very seriously. I think there are still some people. qof walba waa inuu si dhab ah u qaataa xanuunkan safarka ah waxaan u maleynayaa inay jiraan dad dhahaya kiisas yar ayaa laga soo sheegayaa gobolka oo dhibaato ma lahan waad ogtahay isbitaalada ayaana garan kara arrintaasi iyo waxa la hadalhayo bukaano badan ayaa si dhaqso ah u imaanaya isbitaalada The large number of patients to come through their doors very quickly. dalka Talyaaniga ayaa soo rogay xayiraado dheeraad ah oo dhanka socdaalka ah iyadoo dawladdu ay isku dayayso sidii ay u xakameyn lahayd faafidda viruska safmarka ah dadka ayaa horaan laga mamnuucay in ay dibadda u safraan waxaana haatan aan loo ogolayn in ay bannaanka sii joogaan in ay sababo caafimaad wataan maahane Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa shacabka uga digay in bandowga ay dhab u qaadan waayaan waxaana uu maamul goboleedyada ka codsaday in ay dadka ku qasbaan si ay shuruucda u raacaan digniintan ayaa imaanaysa kadib markii baraha bulshada ay ku xiriirto lagu arkay muuqaal muujinaya rag munaasabad qabsanaya saacado kadib bandowgii lagu soo rogay dalkaasi xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa ku sugan caasimadda Afghanistan ee Kabul si uu wada hadallo ugu qabto madaxweyne Ashraf Ghani iyo mucaaradkiisa Abdullah si loo badbaadiyo heshiiskii dhexmaray Mareykanka iyo Taliban balse madaxweyne Ghani ayaa ku adkeysanaya sii deynta maxaabiista Talibanka ugu dambeyntiina saraakiisha caafimaadka Taiwan ayaa $33,000 ku ganaaxay nin iska dhiga tiray in uu iskarantiilo isagoo booqday goob lagu caweeyo oo ay ku sugnaayeen dad aad u fara badan booliiska ayaa ninkan badigoob dheer u galay kadibna gacanta ku soo dhigay warkii caalamkan waa naginta Bushro Samiira aad ay u mahadsan tahay dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka aan ku bilaabanay iyadoo fayraska corona faraba aan ku hayo caalamka iyo dawladda Britain waxa ay shaacisay inay hawsha kala wareegtay shirkadaha gaarka loo leeyahay ee maamula tirinada dalkaasi shirkadaha ayaa laga codsaday inay aqbalaan heshiis degdeg ah oo looga gol leeyahay in lagu la dagaalamo cudurka safmarka ah shirkada diido heshiiska ayaa waxa si qasab ah looga qaadi doonaa tirinada dhanka kale dawladda ayaa laga markaas filayaa talaabooyin dheeraad ah oo ay uga
hortagayso cudurka COVID-19. saynisyahan xasan cabdi dhoore waxa uu ka mid yahay khubarada loo xilsaaray baaritaanka cudurkan, balse isagii ayuuba ku dhacay. walow hadda uu ka caafimaaday qadka telefoonka ayuu igu waramay. waxaa jirta in anigoo shaqada jooga xanuunku i qabtay kabacdina guriga la ii soo diray. marka waxaa la qiyaasi karaa khataraha uu markaas la dhihi karo way ka imaan kartaa waxay tahay shaqadayda oo markaas aan baaritaanka midaasoo aad u hooseysa, laakiin tareemada iyo dadka badanu ay saaran yihiin iyo basadka aan raaco, marka intaasay ka imaan kartaa. marka in la qiyaaso mar halkaasay ka timid maahane wax xaqiiqa oo halkaasaan uu igu dhacay oo iga yimid ma jirto. waan gartay, sidaad noo sheegtay astaamihii lagugu arkay kadibna waa lagu fasaxay, kadib maxaad samaysay? kadib guriga markaan imid bahalka horta wuxuu leeyahay qufac qallalan oo waxba aysan soo raacin ayaa igu bilowday. marka gurigan maaragtay imid gurigan aad ugu xanuunsaday, qandho degdegaha ii timid. waxaa kaloo ii timid mataqaanaa in naqasku uu maaragtay uu idhibay. marka gurigan joogay oo isku karantiilay. marka daawooyin aad qaadatay ma jiraan? nooceesa ahaayeen? wallaahi horta bahalkan wax daawaa oo hadda soo baxay ma jiraan. bahalkan oo hadduu yimid waa cusub yahay, waa bahal oguba oo adduunka ku cusub. marka daawadu in la sameeyaa ama talaalka la sameeya waqti dheer ay qaadataa, taqriiban 12 bilood iyo wax ka badan haddiiba ay soo degdegto. marka wax daawaa bahalkaanu male. keliya waxaa la siiyaa qofka kaalmaati oo maaragtay sida wax qandhada ka jebinaya. marka anigu waxaan qaadanayay markii hore paracetamol, 2 xabo paracetamol 500 iyo ibuprofen oo aan ku darsanayay iyo biyo badan ayaan cabayay. marka wax daawa oo markaas weli diyaar ah oo la isticmaalo ma jiraan. xasano, waxaa tahay saynisyahan waxaadna ku takhasustay baaritaanka cudurada fayraska uu keeno. soomaali badan ayaa weli rumaynin inuu dhab yahay cudurkan, maxaad u sheegi lahayd? waan la kulmaa soomaalida mar badanna waa isku dayaa inaan u sheego oo wacyi geliyo. meel kastoo aan joognana xoogaa marka hore dad ilaahay aad u aaminsanaanahay, taasoo aad u fiican. haddana waxaad maaragtay inaan isfojignaano oo isjirno oo wixii markaas adduunka kusoo kordha aan la soconno. cudurkan oo kale, cudurkan waa cudur khatara, maaragtay in dadku ay u dhimanayaan. talyaaniga ayaa aad adduunka ugu shoogsan yahay, iiraan iyo south korea. waa cudur si fudud ku imaan kara adoo dhayalsanaya ama dad maaragtay adoo ku dhex jira maaragtay fududaysanaya. haddana waa cudur khatartiisa leh. cudurkan waa cudur ugub ah oon la aqoon ilaa hadda. dad da-ah ama dad xanuunsan ayaa u dhintay xitaa marmarka qaarkood. arrintu sidaas maahanoo dad dhalinyaro ah oo fayow ayaa u dhimanaya. dadka positiveka oo isbitaalada yaala oodan malay karin oo aan neefsan karin, qofka hadduu arko asagaaba maaragtay tacajab arki doona. marka cudurkan waa cudur jira, waana in layska jiraa. dowladaha caalamka waxay bixiyeen talooyin kala duwan oo markaasi looga gaashaamanayo cudurkan, sida in la kala fogaado. maxay waxtar leeyihiin tallaabooyinkaasi? matalan oo kale waxyaalaha ku yimaada waxaa ka mida qofka markuu neefsado ama hindhiso ama qufaco kale inuu uu safro cudurkan muddo gaaban, taasoo lagu qiyaasay ilaa 2 mitir. waxaa kaloo jira haddii meelaad isugu timaadeen, meeshii markaad isku timaadeen idinkoo maaragtay kooxa waxbaad isla cabteen, waxaa laga yaabaa oo kale kursigii qofka kale uu ku fadhiyo kale inaad taabato, haddana qof kale uu taabto. marka waxa keliya oo bahalkan looga hortegi karaa waa in la raaco talada bahda caafimaadka. kaasi waxa uu ahaa saynisyahan xasan cabdi dhoore oo ka mid ah khubarada loo xilsaaray baaritaanka cudurka corona dalka UK oo goor dhoweyd qadka telefoonka iigu waramayay. haatanna Kenya. dalka Kenya ayaa waxaa maanta ka dhaqangalay amaro adag oo ay dowladda wax uga qabanayso faafidda fayraska corona, kaasoo ilaa hadda ku dhacay 15 qof. goobaha cibaadada ayaa la xiray, waxaana sidoo kale la yareeyay tirada dadka raaca gaadiidka dadweynaha. goobaha kale ee uu saameeyay amarka ayaa waxaa ka mid ah maqaayadaha. haddaba waxaa xaafadda islii booqday wariyaha BBC da Xasan Sheekh Cumar, warbixintan ayuuna ka diyaariyey.
halkan waa bartamaha xaafadda islii ee magaalada nairobi waa halka ugu mashquulka badan islamarkaana laga raaco gawaarida dadweynaha ayna ku yeelaan maqaayadaha laga cunteeyo hoteello iyo xarumo kale oo ganacsi amarkii shalay gelinkii dambe ka soo baxay wasiirka caafimaadka ee dalkani kenya kuna aadanaa in la xiro maqaayadaha masaajidda iyo sidoo kale meelaha dadku ay isugu yimaadaan si looga hortago faafitaanka xanuunka corona ayaa waxaa u hoggaamsamay inta badan maqaayadaha waaweyn ee ku yaalla xaafadda iyo sidoo kale masaajidda inkastoo maqaayaduhu xiran yihiin haddana waxay u shaqaynayaan qaab ah in dadku ay soo dalbadaan islamarkaana guryahooda loogu geeyo hase ahaatee dadkii badnaa iyo shaqaalihii badnaa oo maqaaxida joogi jiray iyo dadkii cuntada halkan u soo doono jiray intaba ma joogaan qaar ka mida ganacsatada maqaayadahan ayaan la kulmay walaalo magacaygu waa axmed cabdi ibraahim niyo saaka ma shaqaynayno innaga amarkii dowladda ka soo baxay baan u hoggaansanay shalayto saakee maqaaxida albaabadaan u xirnay in yaroo takawey ah baa shaqaynaysa keliya amarkaasi culays intee la-eg ayuu ganacsigiinnii ku keena marka maadaama maqaaxidii furnaa jirtay oo in badan dadka kastamka ay halkan imaan jireen ay saaka xihan tahay culays weyn buu nugu yeeshay arrimihii ganacsiga waa taqaanaayo xaafadda islii meelaha u population badan bay ka mid tahay xaafadaha nairobi amarkii dowladda ka soo baxayna wuxuu ahaa in hoteelada iyo meelaha baararka la xidho amarkaasaan annagan u hoggaansanay hadda waxaan dhex taaganahay mid ka mida maqaaxiyaha ku yaalla xaafadda islii oo dabcan ka mida maqaaxiyaha ugu dadka badan oo halkan ay dad badan isugu yimaadaan waxaa ila jooga mid ka mida maamulayaasha maqaaxidan bal adoo magacaada ku bilaabaya saaki waa sidee xaalka maqaaxidu bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah cabdifataax saciid maxamed waxaan ku bilaabayaa maanta maqaayadihii oo dhan waxay noqdeen cidlo wax soo gelahaya ma leh waxaa keliyao naloo ogol yahay inaan teg aweyga keliya ka shaqayno teg aweygana dadka qaadanay waa yari marka saamayn aad u badan baan dareemaynaa saake ganacsi ahaan shaqaalaha hadda xataa noo shaqayn jiray laba unbaa joogo teg aweyga ka shaqaynaya inta shaqayn jirtay laba jibaarkeed baa maqan oo waxay ahaayeen ilaa 30 qof baa ka shaqaynaya shaqaalaha haddana 4 baa noo joog taasaa ka dareemi kartaa in meesha shaqo ka jirinba saamaynta xirnaanshiyaha maqaayadahu ay yeesheen waxaa ka mid ah in dadka ku xiran oo mar walba ka cuntayn jiray gaar ahaana dhallinyarada ay arrintaasi ku noqoto mid culays ah waxaana ka mid a dadkaasi wiilkan dhallinyarada ah wallaahi runtii saamayn aad iyo aad u weyn nugu yeelatay maadaama aan dhallinyarta ku dhaqan magaalkan nairobi rumaantii dee magaalku way aabma ku haysano oo meesha saarana hadda waa maqaaxi haddii laga soo xirana rumaantii noloshuba sii adkaanaysaa insha allah waxaan rajaynayaa in macnaha isaan wax laga bedeli doono hadda halkan ayaa timid intii aan joogay maqaayadan dib ayaad u laabatay dabcan waxaad ii sheegtay inaad qada soo doonatay marka maxaad kallifay inaad dib u laabato rumaantii mar haddii oo ladhahay meeshan wax cunaa ma laga cunaayo oo fadhi ma jiro danta waxa kuu kalifaysa inaad iska noqotay adoo niyo jabsan baahiduna rumaantii shay waxa waaye aad iyo aad u adag waaye oo cadow koowaada nolosha marka waad dareemi kartaa dee qof meeshan waddankan qariib ku haddana meheradii uu saarnaa la soo xiray rumaantii cadaadis aad u weyn u aragnaa dhallinyarta haddaan nahay isbeddel baa sugayna insha allah codkaasina wuxuu u dambeeyey warbixintii xasan sheekh cumar oo nooga soo diyaariyey xaafadda islii halkaad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa b b c haatanna wararka aan xiriirka la lahayn corona urur islaamiyiin ah oo ka dagaalamo dalka Mozambique ayaa dagaal kula wareegay gacan ku haynta magaalo ka tirsan wadankaasi dagaalka oo xalay dhacay ayaa waxa ay xogaga ururkaasi ku qabsadeen magaalada Mikobau de Pria taasoo muujinaysa sida uu dagaalkooda ugu baahayo waqooyiga dalkaasi afhayeen u hadlay booliska ayaa sheegay inay wadaan dadaalo ay dib ugu qabsanayaan magaalada Andrew Harding ayaa warbixintan ka soo diray Johannesburg Mucaawiye Maxamed Buraale ayaa soo jeedinaya weerarka mintidiinta ay ku qaadeen magaalada ayaa bilowday saacada ka hor waabarigii saaka dagaalyahanada ururkaasi ayaa lagu soo warramay inay aad u huwaysnaayeen oo xitaa ay magaalada ku garaaceen madaaficda dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalyahanada ay xireen dhammaan waddooyinka magaalada kadibna ay gacanta ku dhigeen saldhigga militari ee magaaladaasi muddo 3 sano laga joogo ayaa waxaa waqooyiga Mozambique ka bilowday kacdoon huwaysan oo wada urur islaami ah tan iyo markaasina boqolaal qof oo rayida ayaa ku dhintay dagaalka halka kumanaan kalena ay ka barakaceen deegaanka weerarka ay xoogga ku qaadeen magaaladan muhiimka ayaa muujinaysa siday u sii ballaaratay colaadda ka tagan halkaasi bilihii lasoo dhaafay militariga Mozambique oo kaashanaya kan Ruushka ayaa isku dayay inay xakameeyaan colaadda ururkan ayaa la sheegay inay xiriir leeyihiin al-shabaabka Soomaaliya waxayna ka faa'iideysteen tabashada ay muujinayaan dadka deegaanka ee ku aadan horumar la'aanta ka haysata dhanka dawladda
gaar ahaan dhaqaalaha ka soo baxa gaaska dalkaasi. mucaawiye aad ayuu u mahadsan yahay. haatanna jaamac Saleebaan Tubeec waxa uu la dhashay fanaankii weynaa ee Maxamed Saleebaan Tubeec oo fanka Soomaalida caan ku ahaa. jaamac waa suugaanyahan balse suugaantiisu waa ay ka duwan tahay tii walaalkii lagu yaqaanay Maxamed Saleebaan. jaamac wuxuu si weyn u curiyaa suugaanta diiniga ah. wariyaha BBC-da Mawlid Xaaj Cabdi ayuu uga waramay taariikhda suugaantiisa. waxaan bilaabay fanka 57 radio Hargeysa live buu ahaa. radio Jabuuti laftiisa live buu ahaa markaan ka heesi jiray. wax record la yiraahdo waxba jirin wax record ah. recordka 60 buu soo gaaray. waa gartay. marka waxaan ka duwanay anigu markii hore heesaa baan ahaa markii music-gii baan bartay. Allahumma salli ala Muhammad waxaan dabato u bayray idad xagga ay Afrikadaasaan galay aniga iyo niman kale oo saaxiib ahayn oo ka mid yahay Maxamed Yaasiin Deeg abwaanka weynee xildhibaankana ah iyo Bashiir Xaddi iyo baan ahay Cabdulqaadir Abdullaahi nin leeyahay aanu badan iyo laba hablood oo Caydiid iyo inayto Khadra Abdi Ahmed. jaamacow maxaa tirisaa marka adigu suugaantaada waa mid caynkee suugaanteedu waxa weeyaan heeso waxa ka mid ah heesta gurigayga ida waxa ka mid ah heesta leeyahay maahe Khadra qiimiga kalgacal ee quruxda badan la qorsay waxa jira riwaayad dhan oo ay sameeyay wali heesaheedu aanay meel la ka bixin sidii uu hayo oo music-geed iyo waxa la inta la tubay Maxamed Saleebaan iyo wuxuu hayaa Sidi Axmed Digseer iyo Xaawo Maxamuud iyo Faaduur iyo aniga iyo wada heeseen riwaayad baa heedo 90 markii dagaalku dhacay baan dabad ka joogsanay anagu rabna waqooyi soo baxno marka waxaan kaga duwanahay anigu imka talawaadka nabiga qasaayidka suugaanta diiniga ah baan kaga duwanay. waayahay bal qaar kamida ma maqashiin kartaa ama se ma ku looqayn kartaa yaa music-gii markay ma agyaalo Mawlido marka waxay noqonaysaa hadii aan heesa iyo wixii soo dirayo inaan Hargeysa tago insha Allah alla xiriiro wariyaha heesahayga u caanka waxa kamida nafsi ruuxi gaaxsha godolkii Soomaali sidanaani ku galay gafinay sidadigu argudashadaaduna gar ilaahay way iga goosan awaad iga gacan saray qof gafa aqalkii yahay guudaramtee waxaana aynin gabadhyahay gacantaadu malik waxaana gareexiyo godobka tirsanay guurhayga filanine gurigayga heestaas oo caanka odaybaan hooy marka codkaygu ma fiicnaa weli codkaaga waa hallaasi jaamaco waa yahay jaamac waxaad iiga warantaa allaha u naxariistee Maxamed Saleebaan Tubeec walaalkaa buu ahaa waa fanaan caan ah oo Soomaaliyeed boqorkii fanka la yiraahdaa maxaad ku kala duwan tihiin adiga iyo Maxamed Allahu raxmadee Maxamed waxaan ku kala duwanay markii hore fanka ana ugu horeeyay Maxamed marka anigu isagu soo galay marka anigu ka baxay fankii marka Afrikada inta kulubay baa toban sano ku baqay soo noqday marka soo noqday waxaan bilaabay suugaanta diiniga waxaan ku kala duwanay waxa la yiri waxa loo bixiyay boqorkii cod markii anigu aan heesi jiray idaacadda radio Hargeysa ka heesi jiray iyo Jabuuti aan kaymi Maxamed Saleebaan markuu galay waxa la yiri waa jaamac Saleebaan walaalkii magaciisa baa shaqeynay markii imika hadan ilaa al'aankan adiga Mawlida waxa lagu yiri waa jaamac Maxamed Saleebaan aad iyo aad marka magac weynaaday boqorkii codka loo bixiyay Allah yarxamo Maxamed looma sameyn jirin erayada baa loo sameyn jiray wax musiga ninkaas musiga xariif ku hayna muu tubi jirin hadana waa adiga arkay laxanada uu sameeyay iyo sihiisa in musiga ku jira jaamac Saleebaan Tubeec ayuu kaasi ahaa haatanna baafintii